Assalaamu calaykum. Jamco wanaagsan. Ku soo dhowaada qaybta labaad ee taxanaha sirdoon. Hiba Cabdiraxmaan Saalim waxay ahayd basaasad Masaariya oo si hagar la'aaneed ugu adeegtay Mossad, siro iyo xogo badanna ka bixisay Masaarida, gaar ahaan ciidanka Masar. Iyada keligeed ma aysan qaban hawshan, waxaase ku wehelinayay ninkii ay u doonanayd ee Faaruq al-Fiqi oo ay markii dambe isguursadeen. Waxay ka soo jeeday magaalada Asyut ee bartamaha Masar ku taal. Asyut waa caasimadda ismaamulka Asyut ee dalka Masar, waana halka ay ku yaalaan kaniisadaha ugu badan ee Qibdiyiinta Masaarida. Waxayse ku soo barbaartay xaafadda bulshada dabaqada sare ee injineeriyadu degto caasimadda Masaarida ee Qaahira. 2010kii taxane ka baxay TV Masaari ah waxa uu Hiba Saalim ku tilmaamay gabar qurxoon oo aqli badan, bashaashad ah oo dala dhaqanka taqaan. Waqtiyadii dhalinyaranimo waxay asxaabteeda waqti kula qaadan jirtay kalaabka caanka ah ee Al Jazeera. Sanadkii 1967 ayay dhammaysatay dugsiga sare. Sanadkii xigay ee 1968 aabaheed oo ka tirsanaa wasaaradda waxbarashada ayaa ku khasbay inay waxbarasho jaamacadeed u aado Faransiiska. Kama u warqabin dhibka ka iman kara iyo in siyaabo badan looga faa'iideysan karo gabadhan yar ee Faransiiska loo soo diray. Hiba markay Faransiiska tagtay waxay la degtay qoys qonsul Masaari ah oo deganaa Paris. Hiba imaanshiyaheedii Faransiiska waxay rajaynaysay inay ka shaqo bilowdo safaaradda dalkeeda Masar ee Paris. Isku dayo badan oo ay samaysayna waa loo diiday inay ka shaqayso safaaradda Masaarida. Xilligaas waxay Hiba u ahayd waqti adag oo waxaa iskugu darsamay duruufaha joogitaanka dal shisheeye iyo baahida lacageed ee uu qabi karo arday jaamacadeed oo ku nool dal Yurub ah. Hiba jaamacadda waxay wada dhigan jireen gabar Yuhuudiyada asalkeeduna Boolish yahay. Gabadhaas iyo asxaabteedii kale ee Boolishka ahaa ayaa fikir ka duwan kii ay horey uga aaminsanayd ka siiya Israa'iil. Waxay ku doodayeen inaysan ahayn dad shido, dagaalka iyo colaadana aanay jeclayn, ujeedadooduna ay tahay u dhisidda mustaqbal wanaagsan naftooda iyo tanjiilkooda. Maalmihii bilowga jaamacadda, Professorkii luqadda Faransiiska ayaa u sheegay Hiba inay ku biirto jaamacadda Sorbonne si ay u dhammaystirato barashadeeda luqadda Faransiiska. Wuxuuna u sheegay inuu u fududayn doono dhammaanba shuruudaha looga baahan yahay ku biiridda jaamacadda Sorbonne. Tani waxay ahayd barbilowga howlgalkeeda basaasnimo. Hiba caqli badnaanteeda ayaa ka caawisay inay muddo kooban ku barato luqadda Faransiiska ee aan sahlanayn. Xilligan ayayna ahayd markii ay ku biirtay sirdoonka Mossad. Waxaa waqtigan Faransiiska ka buuxay unugyo basaasiin Mossad ah. Shaqaalaysiintii Korneyl Faaruq Cabdulxaamid al-Fiqi. Hiba fasaxeedii koobaad ee ay dib ugu soo laabatay dalkeeda hawsha Mossad u soo igmatay waxay ahayd soo xirigelinta Korneyl Faaruq Cabdulxaamid al-Fiqi oo ka tirsanaa ciidamada Masaarida. Waxayna ku guuleysatay inay si dhib yar ku soo xirigeliso Korneylka. Ugu horreyntiiba waxay Hiba weydiisay Korneylka xogta gantaalada ay Masaaridu ka heshay Ruushka. Korneylkuna waxa uu siiyey dhammaan xogihii muhiimka ahaa ee uu hayay. Markay xogtan gacanta ku dhigtayna waxay isku sii dhaafisay Paris oo ahayd halka taliska iyada shaqaalaysiiyey ee Mossad ay fadhiyaan. Siraha xogaha ay dirtay waxay ahaayeen dukumentiyo iyo khariirado ciidan oo sir culus xambaarsan, iyo xogta gantaaladii ay ka baqanaysay Yuhuuddu ee SAM-6 anti-aircraft missiles, gantaalada lidka diyaaradaha ee SAM-6. Sargaalkii Mossad u fadhiyay Paris waxa uu xogtan isna isku sii dhaafiyey taliskii isaga ka sarreeyay oo joogay xarunta wakaaladda Mossad laga maamulo ee Tel Aviv. Markii uu talisku warbixintan rogrogayna waxa u soo baxday inay tahay xog aad u muhiim ah. Warcelinta xarunta ugu sarreysa uga timid sargaalkan Paris joogayna waxay noqotay waxaanu Hiba Saalim u tixgelinay basaasad muhiimad weyn ugu fadhida danaha Israa'iil. Markii aanu aragnay khatarta xogaha ay noo soo gudbisay si dhow uga warhaya shabakadan qarsoonina muddo ayay sidaas u shaqaynaysay oo hadba wixii la helo ee xog iyo dukumentiyo ah sidaas la isku dhaafsanayay. Intii uu socday dagaalkii magacyada badan loo yaqaanay sida dagaalkii Yom Kippur, dagaalkii Rabadaanta ama dagaalkii Oktoobar oo ahaa dagaal socday 6 Oktoobar
ilaa 25 Oktoobar sanadkii 1973 oo dhex maray isbahaysi Carbeed oo ay hogaaminayeen dowladaha Masar iyo Suuriya iyo Israa'iil oo dhinaca. Xogihii Yuhuuddu ka heshayba waxay u fududaysay fulinta bartilmaameedyo dhowr ah oo ay la beegsatay xarumo ciidan iyo gantaaladii lidka diyaaradaha ee Masaarida oo markaasun cusbaa. Xogtooda iyo halka ay yaalaanna dad koobani ogaayeen. Waxaa sidoo kale duqeyntaasi galaafatay nolol iyo hanti badan oo Masaari ah. Xilligaas waxay ciidamadu dareemeen inay jirto cid hagardaamaynaysa oo dhabarka ka tooganaysa dagaalka ay kula jiraan Yuhuudda, waayo waxay ogaayeen inaysan Yuhuuddu dhayal ku ogaan xogta hubkii Masar ka heshay Midowgii Sofiyeeti. Ugu dambeyntiina, dabagalla dheer oo ciidamada sirdoonka Masaaridu sameeyeen waxay ku soo dhameeyeen inay fashiliyaan howlgalka basaasnimo ee Korneyl Faaruq Cabdulxaamid Alfiqi. Markii la qabtayna waxaa la soo taagay maxkamad ciidan. Ciidamada Masaaridu waxay Korneylka ku soo oogeen howlgal basaasnimo oo waxyeello weyn u geystay xuduudda ciidan ee Masaarida, waxaana lagu xukumay dil toogasho. Si kasta ha ahaatee, waxay ciidamadu istuseen qorshe kale oo ah inay ka dhigaan double agent, laba wajiile jaajuus labada dhanba u shaqeeya. Qabashadii Hiba Saalim. Hiba Saalim waxay gacanta u gashay ciidamada sirdoonka Masar kadib markii loo diray telegram sheegaya in aabaheed ku jiro isbitaal ku yaal Liibiya. Marka ay soo caga dhigatay diyaaraddii sidayna, inta la soo qabtay ayaa lagu wareejiyey diyaaraddii u qaadi lahayd Masar. Waxay ahayd wada shaqayn horey loo sii qorsheeyey oo ay ka wada qayb qaateen ciidamada sirdoonka ee Masaarida iyo Liibiyaanka. Hiba Saalim iyo Korneyl Faaruq Cabdulxaamid Alfiqi waxaa maxkamad lagu soo taagay dalka Masar, waxayna qirteen falka lagu soo eedeeyay ee basaasnimada, waxaana lagu xukumay dil toogasho. Qabashada labadan sargaal waxay dhalisay dadaallo badan oo dalal kala duwan damceen inay kaga baajiyaan dilka. Henry Kissinger oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa dhexdhexaadin u tegay Masar. Kulankii koobaad ee Kissinger iyo madaxweyne Anwar Saadaat waxa uu madaxweynuhu si kooban ugu sheegay wasiir Kissinger in aanu waxba ka ogeyn kiiska Hiba Saalim, sidaa daraaddeedna ay kulmaan caawa fiidkii. Isla markii uu kulankoodu dhammaaday, waxa uu Anwar Saadaat amray in la daldalo Hiba Saalim. Saacad gudaheed ayaana qodha looga jaray oo waa la daldalay. Markii la gaaray goortii ay labada mas'uul kulmi lahaayeen, madaxweyne Anwar Saadaat waxa uu wasiirka u sheegay in dhexdhexaadintiisu ay soo dib dhacday. Xilliga uu Kissinger ku soo beegmayn ay ahayd goor xeero iyo fandhaal ay kala dhaceen. Waxay ahayd kaarta cajiiba iyo siyaasad caqliyeysan oo uu isticmaalay Anwar Saadaat uguna daneeyay dadkiisa iyo dalkiisa. Naxdin ama kaag iyo u qaadan waana ku noqotay basaasiintii kale ee Masaarida hagardaamada ku waday iyo wakaaladii Mossad oo Hiba horay ugu ballan qaaday in mar walba ay diyaar u yihiin badbaadinteeda. Sababta madaxweyne Anwar Saadaat uu gaashaanka ugu dhuftay ka gorgortanka kiiska Hiba Saalim wuxuu ahaa diiditaanka inay tani noqoto silsilad furata oo basaas kasta oo lasoo qabto looga baajiyo dil, taas oo basaasiinta kale gelinaysa dhiiri dheeriya. Ugu dambeyntii, Hiba Cabdiraxmaan Saalim Cumar waa la daldalay. Korneyl Faaruq Cabdulxaamid Alfiqi waxaa lagu fuliyey qisaas si ay cibro qaadasho ugu noqoto basaasiinta kale ee Masaarida uga dhex adeegta ama uga dhex adeegi doonta Mossad. Hiba waxaa laga sameeyey filimka Masaariga ah ee Sacuud ilal Haawiya oo noqday mid ka mid ah filamadii ugu daawashada iyo xiisaha badnaa ee taariikhda shileemooyinka Masaarida, iyadoo dhammaadka filimkaasna Abla waa magaca Hiba ay filimkaas ku jilaysay markii diyaaraddii waday ay ka soo duushay Liibiya oo ay garoonka Qaahira ee Masar soo caga dhigan rabtay, ayaa sargaalkii sirdoonka Masaarida ee diyaaradda la saarnaa markii ay aragtay ahraamta iyo webiga Niil ee ay Masar caanka ku tahay, waxa uu si degasho leh ugu leeyahay oo halkani waa Masar Ablay. Filimkaas Masaariga ah ee aan kor ku soo carabaabayna waxaad ka daawan kartaa linkiga muuqaalkan hoos yaalla isagoo dhammaystiran. Taxanihiina maanta intaas ayaa unooga egyahay, waxaana taxanaha kan xiga aanu ku soo qaadan doonaa basaaskii ugu khatarsanaa Mossad ee ay ka shaqaalaysiiso Suuriya oo xitaa ku dhowaaday inuu madaxweyne ka noqdo
dalkaas. Waxaa sidoo kale si la mid ah taxanahan aanu idinla wadaagi doonaa filimkii laga sameeyey basaaskaas. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.